soo dhawaad ilka casir noogu soo dhawaad faarga aad oo ku soo dhaweyn walaal macaan meeshaan waxa magaalo lagaaga baahan yahay baadiyo miiran waay soo dhawaad walaal let's go baby arooskiisii ka cararay markuu arkay nimca joker markii hore kaftan bay arrinta ahayd maadaama ay kaftan ahayd gabadhan adeerka u ahaa kiin jaamacna ee u sallaxday ee tiri igu labaysa macaano intaas kiin jaamaco la iska ilaalinayo ayaa dhinacan waxaa ka soo baxday markuu yidhi anay gabar geela oo qalanjaa oo dheer oo joog iyo jamaal leh oo hubqaad leh oo ogaadeen haddaa isiisaan ogaadeen oo cayda waa idinka deenayaa beesha ogaadeen oo nacab in la caayo la aflagaadeeyo aadna uga gubto ayaan sweet ayaan isoo qabeelay aniga dad salaamu calaykum dhihin isoo qabay kuleeda fududa ayaan salaamu calaykum dadkan kugu jira af Soomaaliga maxay tahay af Soomaaliga see waay af Soomaali nooc kale ku hadlayaan la hadlayaa boqolaalka commentiga noocaan ay soo qorto mar walba ida Cabaasa kama sirsiine Cabaasa bahdilowsa ninkaan u aroostay Cabaas horta Cabaasa rabaa inaan baro Cabaas horta markuu ilmihayga abahood waaye marka labaad waxay tahay qof xushmad iyo yani ixtiraam naga dhaxeeyo horaabal igu galay marka saddexaad waxay tahay waxaan nin ajnabi u guursada oo aan hore asaga u sheegay haddii ani asaga aan kala tagno calafkeen dhamaadina nin dambo Soomaali guursanay because nin Cabaas ka fiican inuu Soomaali ku jiro ma malay hadaa saas dhaana soo dhaarayaan ninkii uu xiistay aad baa warku u qalqaloocisiin aniga wiilka soo walaalkay haddana ulaada naga dhaxays xishmada naga dhaxays wanaaga naga dhaxay wax rajal dhaay isku naqshay ina mar horeeba dhamaataba hadda kullee naag xaasoo marwaa ahay soo marka dadka noocaas u fakara please maskaxdiina ciyaal camal u shaqeysaa isa saxa Cabaas ma gaartiine ama nimca dheeman iska doondoon waa ku qasbantiin laakiin nimca dheem wax la iska doondoono way tahay codkeeda wax la iska doondoonay socodkeedii labiskeedii dad badan baan arkay aniga oo labiskeedii socodkeeda iska doondoonay Soomaali Maxamed wayna salaamay meel walba joogtaan siibahan asxaabta TikTok maxay aday fuuliga xilligu soo gaaray waxaan wanaagsan baan leeyahay maanta halka waxay soo istaajiyay oo aan ka hadlayaa in la dilay inankeenii yaraa ee tintaadax inanka yar wax micnaa uu sameey jiray ma jirto sawiro buu gali jiray wax fiishicilla ku jiray ma jiraan diinna kama bixin dhaqanna kama tagin dharkiisa caadiga ah rag wuxuu jiray buu xidhay in la dilo oo maanta inama isugu tagaan ay kaga barooriyaan bay dilaan bay ilaahdaan fuuliyo ka duwan wallahi waa aad iyo aad baan uga xumahay because maxay yahay dhalay qofka bini'aadankii isaga xorriyad u leh wuxuu samaynayo sidii oranayo isaga horti jirtaan nin walba inaad ardo wala tagay halkii moogtay waa la xisaabinay ilaahay baa inna xisaabinaya marka qof walba xorriyad u leeyahay xorriyadiisa uu sidaan oran lahaa ninna ka soo horjeestina gabadhna ka soo horjeestina ma fahanteen marka waxaan leeyahay dhaqanka aad bilowdeen iska daaya ya kaadii kale inaad social media weyn niga tagay dad ina kiyareena tira soo baxay dad dilaysan aade reer Soomaaliland ina dhaqanka ina markii hore ka ladnayna in dad waxa bilowdeen ciyaarahaas ya dadka waxa leeyahay waxba aduuna xorriyadba ma jirto guriyana ku jira leeyahay أنا وحاول كسر كذا نقول يناقول بيداوني هذا الناس صار سبسكرايب على خير قصي وحدة دقات خفرح داير عليها قصي كسر برح قصورتي في أنا ورد دقان هالكن كاي قصي قد بنيا سيد هالك خوارقتو إلك عسقيس وهبيك حري هذا عيب شوكر لقو عنا الشبي أضغو بعقل على هذا عرر محار نعمة أرتني عبد ليسك قاعد عيل كريه درا أضغو بعقل على هذا على خفوت فوس وهذا reer Mareykan oo xari u dabaal dileen ciidamada Shookar iyeelka caso oo la soo kala baxay heesihiisa cusbaa ee uu dabka ka soo qaaday maalmihii dhaweyd halka xafladda weyn lagu qabtay iyo sida loo raali galiyay ee cumaamada loogu tuuray ciidamada Shookar ee boqolaal dumar ay gambooyinkooda ku tuureen ee leeyahay ka raali ahow labadii sanadood wixii waxa weey baraha bulshada sida lagu soo qaadaa dhigay haddaan si kala u eegno dad fara badan oo caan ah ayaa lagu soo falanqeeyay baraha bulshada balse sida Nicmo Shookar loogu falanqeyn jiray hore tan oo kale uma dhicin 2 sano oo waxa weeyaan gaw ah ayay wali socotaa Nicmo Shookar hawsheed oo haddii waxa weey ay ugu badato toddobaad ama meelahaas waxa weey markay dhamaato haddana dib ay u soo farcamayso haddaan si kale u eegno farxiya fiiska weynagii ogeyn arooskeedii hal bilow kaliya socday sidana uu ku dhamaaday waa la ilaabay caynkan bay heblaayay waxaasoo dhan waa iskaga soo gudbay balse Nicmo Shookar waa maxay sababta
labada sano ee gawda ah baraha bulshada loogu qaadaa dhigayo ee loogu falanqaynayo ee marba waxa weye markay tani dhammaato haddana mid kale haddana ilka casaa guursaday nicimo shookar bay hebleys ku dhegan yihiin nicimo shookar baa cod laga duubay nicimo shookar baa caankana ugu dambeyn xalay wixii halkaa ka dhacay looma kala hadhin fanaanka caanka ilka casaqays baa isaguna macdaarka intuu saa isu taagay isla kala bixiyey oo gacmaha madaxa u saaray oo ihi waan ku raali gelinay ka raali ahow wixii kugu dhacay ka raali ahow sidii laguu soo bahdilay ka raali ahow sidii baraha bulshada dadka qaarkood ay kugu falanqeeyeen balse nicimo shookar ayaa hadda noqotay gabadh taageerayaal fara badan yeelatay weliba iyadoo dumarku ay xoog u taageereen sababtuna ay tahay in waxa weeye ay noqotay gabadh daacada oo waxa weeyaan wax walba daacad ka sheegta sida halkaa ku aragto waa Rayaan Bashaash oo guursatay nin cadaan ah horta waxaa la baraha bulshada lagu baahiyey in ninkan cadaanka uu leeyahay gabadh kale gabadha halkaa ka muuqata maaha gabadhiisa ee waa walaashi anaa soo ogaaday ninkan ayaa ah nin ka caan ah baraha bulshada oo weliba muuqaalo fara badan ka duubay Somaliland iyo Muqdisho iyo meelo fara badan oo kale ugu dambeyn ninkii waxay isireen inantii Rayaan ahay dadka qaarkood baa muuqaalo ay xalay soo duubeen iyagoo waxa weye xaflad loo dhigayo oo ay wax abcabayaan ku sheegay inay yihiin waxyaabaha maanka dooriya balse maaha ee waxa weye sida aan ku arkayno waxay abayaan ilama aha aniga wax maan dooriye ah balse inantaas waxay sheegtay in ay iyadu dooqeeda dooratay oo ay nolosheeda diyaar u tahay ay xor tahay oo waxa weeyaan ay guursatay ninkaas cadaanka oo aanay ahayn gabadhii ugu horreysay ee nin cadaana guursata ugu dambeynna waxa weeye way is guursadeen way ismehersadeen waxay sheegtay inay soo muxsinin doonto oo ay soo hanuunin doonto oo laga sugi doono shawaabo oo Rayaan Bashaash maanta dad badan ay falanqaynayaan oo ay leeyihiin ninka caankana maxaad u guursatay gabadhii way luntay waxa noocaas balse gabadhaas ugu dambeyn waxay ku soo gunaanaday inay iyadu dooqeeda dooratay oo ay xor tahay sida halkaa ku aragto waa baabashay oo muuqaalo la yaab leh soo duubay maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada isaguna haystay ayaa isagu oonaya muuqaalo soo duubay ku sheegay in dad ay muuqaaladiisa sharjaraan oo waxyaabo yaryar oo aanu markaa isagu ka wadin sida ay tahay ama dadkaasi u adeegsanayaan aanay ahayn oo dadka qaarkood ay aamineen adiga arkay baabashay oo lagu bahdilay baraha bulshada la leeyahay sidan buu sameeyey waxa weeyaan ninkaa aan waxba qarabsan ayaa adigu waxa weeye siduu muuqaalada u soo duubayo isagoo horta oynaya sidoo kale halkaa waxaad ku aragtaa ninba waa mareh anna malabka aan dhaansado malabka farta aan soo darsado waa fanaanada Farxiyo Kaba Yare oo markan iyaduna waxa weeye baraha bulshada ku faafi doonta haddii aad maqli jirtay fanaaniin fara badan ayaa waxa weeye meelo badan oo adduunka ah shawiye ku soo kala qabtay sida Ilka Case Dalmaryare fanaaniin fara badan ayaa meelo fara badan tegay ma aragnay Farxiyo Kaba Yare beriyahan oo meelo adduunka ka mid ah shaw ku qabanaysa ugu dambeyn waa adiga arka waxay tiri waxaan soo marayaa adduunka oo dhan baan anaa isu soo mari doonaa bay tiri maanigaa marba bacal caga lay soo xaabsadaa oo liigu soo aqtuntaa maanigaa meel heble waxa weeye caan marba ka soo noqda ugu dambeyn adigu waxaad arkaysaa Farxiyo Kaba Yare hadalkaa meel ku qoro bilaha soo socda Farxiyo Kaba Yare ayaa meelo badan oo adduunka ah isu mari doonta oo weliba waxa weeye ugu horeyn doonta meelo badan oo caalamka ka mid ah oo sida halkaa ku arkaysa ay sheegtay in ay iyaduna markeedii waxa weeye kasoo tumi doonto dad badan oo Soomaaliyeed halkaa ku aragto waa Cabdimahad oo ah wiil yar oo dhalinyaro ah oo weliba arday ahaa ayaa xalay lagu dilay gaalkacayo wiilkan yar dhalinyarada ahaa ayaa la sheegay inuu weliba dugsiga sare ka gaaray maadooyinka ugu sarreeya heer sare uu keenay ugu dambeyn wiilkaa yar lama garanayo sababta loo dilay sida dadku sheegayaan aana qabiil arrin la xiriidha ayaa loo dilay runtii maadooyinkiisa oo baraha bulshada lagu soo baahiyey waxay ahaayeen maadooyinka ugu sarreeya dugsiga oo dhigto markii waxa weeye la qiimeeyey balse waxa weeye runtii dhacdo xanuun badan bay ilaah ugoodka ku nuur ayaan ku leenahay sidoo kale halkaa waxaad ku aragtaa hablaha dusha masarka cas ku xidhan waa hablihii ka qayb qaatay waxa weeye mudaharaadyadii ka dhacay Somaliland oo musharaxa xisbiga wadani ee Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cirro uu sheegay inuu u aqoonsaday mushaahidiin hablahan oo uu sheegay inay ka qayb qaateen isbedel doonka ereyga ay ula magac bixeen xisbiga wadani
ayaa shalay lagu casuumay magaalada Hargeysa iyadoo lagu doonsiiyey shahaadooyin la sheegay inay yihiin shahaadooyin mushaahidnimo oo isbedel doonka ay ka qayb qaateen waa hablaha yaryar oo xabsiga Hargeysa gabriel laga soo daayay oo waxa weeye loo aqoonsaday siday sheegeen waxa weeye inay mushaahidin yihiin oo wararka ugu la yaabka badan ee aan hore loo arag waxaan ku leeyahay wararka yaabka leen faraqayn doona bilow ilaa dhamaad la socdo xalay waa adiga arkaya sidii fanaanka caanka ilka casaqays uu waxa weeye u raali galiyay inantii Nicimo soo qarahay oo madaxa loo saraaxay oo dumar badan ay gambada ku tuureen oo waxa weeye halkaa wixii xalay ka dhacay ee waxa weeye halkaa ilka casa oo isaguna heesaha dusha uga qaaday ee waxa weeye dad badan intay isu yimaadeen xafladda markii la isu yimi raali galin saxa inantaa la siiyey oo lagu yiri naga raali how wixii kugu dhacay wixii meel walba lagu maray